calaamadaha xilligan adag waxaa si gaar ah u muujinayo qiso dhab ah oo ku saabsan oo ku dhacday hooyo reer aan asxaab ahayn oo haysata 10 carruur oo ninkeeda koox aan la aqoon ku dileen Muqdisho sanadkii 2008 10 sano kadib 2018 waxaan ka war helay in wiilkeedii oo ugu weynaa oo ahaa isha keliya ay dhaqaale ka heli jirtay lagu dilay weerar gaadmo ah xilli uu ka soo laabtay masjidka salaadii cishihii waan wacay si aan ugu tacsiyeeyo geerida wiilkeeda kadibna waxaan weydiiyey si sudfad ah inay garanayso cidda ka dambaysay dilka wiilkeeda waxay iigu jawaabtay iskuma howlin inaan raadiyo cidda dilka wiilkayga ka dambaysay waxayna cod quus ah igu tiri maxaan samayn karaa xitaa haddaan ogaado ciddii dishay haddii aan hal kelmad idhaahdo waxaan hubaa inay mid mid u dilayaan dhammaan carruurteeda ilaa haween isagaa ciidan noo ah astaamaha lagu garan karo xilligan adag waxaa muujinayo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool xaaladda dhaqaale ee amni ee ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool min raas caseer ilaa raas Kambiyooni diinteena suuban iyo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam ma amaanin dadka ficilkooda iyo qowlkooda ay iswaafaqsaneen sida uu xadiiskiisa ku sheegay ficilka oo dhahaya ficilka waxa uu ka yimaadaa niyadda qof kasto wuxuu sameeyaa wixii niyadiisa ku jiro waxaan kaliya ka dareemi karaa intaas dawladihii 30 sanana soo dhaafay in ay ama ay wax aan run ahayn noo sheegayeen ama in aysan fahansaneen sida ay wax u socdaan Soomaaliya waxay u baahan tahay in cagta loo dhigo Soomaaliya waxay u baahan tahay in maqaar sagaaro loogu seexdo inta ay cagaheeda ku istaagayso oo ma aha in maalin kasta oo wax la qarxiyo nin oo ama madaxweynaha ama prime minister ama wasiirka difaaca inta tuuto uu soo qaato oo yiraahdo wallahi billahi waan la dagaalameynaa